waxaa jira waqtiyo qof aad jeclaan kartid laakiin qofkaas dhinaca kale uusan ku jeclayn adiga isla markaasna uu ku siinayo calaamado aan toos ahayn ama uusan si toos ah kugu oranayn kuma rabo. sidaa darteed waxaan kula wadaagi doonaa maanta sida lagu garto haddii wiil ama gabar aysan ku rabin. inta aadan muuqaalka gudaha u gelin waxaan kaa codsanayaa inaad like saarto si ay u gaaraan saaxiibo adiga oo kale ah. qodobka koowaad, saaxiibo ayaa nahay. haddii iyaga aysan doonayn inaad shukaansato waxay kugu hayn doonaan aaga saaxiibtinimada oo haddii aad isku daydo inaad samayso dhaqdhaqaaq kasta ama aad qaado tallaabo wuxuu kuu sheegayaa ama ay kuu sheegaysaa in labadiinu tihiin saaxiibo oo kaliya. sidaas darteed tani waa tilmaan cad oo muujinaysa inaadan wada socon karin. la kulankaaga oo la iska ilaaliyo. haddii iyada ama isagu aanu adiga ku rabin marka had iyo jeer wuxuu qofkaasi iska ilaalin doonaa inuu kula kulmo. wuxuu qaab kasta iskaga ilaalin doonaa inaad wada kulantaan maadaama qofkaas uusan ku rabin. haddii ay noqon lahayd inuu marmarsiyo kula yimaado ama si cad uu kuugu sheego in uusan kula kulmi karin. qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa fariimaha. isaga ama iyadu waxay had iyo jeer ugu jawaabi doonaan fariimahaaga qaab aadan rabin oo xitaa way la soo daahaan jawaabaha fariimahaaga. tani sidoo kale waxay ku dareensiinaysaa liiska inuusan isaga ama iyadu adiga ku rabin oo aadan wada socon karin. qodobka kale, si farsamaysan oo loo diido qorshahaaga. haddii aad la timaado talooyin ku saabsan qorshooyinka mustaqbalka ama aad u soo bandhigto rabitaan ah inaad doonayso inaad mustaqbal la wadaagto, isaga ama iyadu waxay kuu sheegi doonaan inaysan ballan qaadi karin taasi sababa jira awgood. haddii isaga ama iyada ay ku rabto markaa way kaa yeelaysaa qorshooyinkaaga weliba si farxad iyo soo dhaweyn leh.